رمضان كريم أصحابتا جنالك حقباري كسو دواذا موضوعنا مانتا meelaha ay ku kala awood badan yihiin dawladaha Mareykanka iyo Ruushka waxaan idin soo bandhigaynaa shanta meelood ay ku kala awood badan yihiin wadamada Mareykanka iyo Ruushka dhulka sida caadiga dagaalka dhulka ee labadan dal wuxuu ka dhaxdhici doonaa qaaradda Yurub maadaama Mareykanka ay ciidamo badan oo dhulka ka joogan Yurub gaar ahaan wadamada xuduudda la leh Ruushka sida Poland, Latvia iyo Estonia wuxuuna ahaan doonaa dagaalkan mid ka kooban taangiyada dagaalka artilleriga iyo gawaarida gaashaaman waxaana ay dawladda Ruushka ku hubeysan tahay 20,000 oo taangi iyo 32,000 oo qoryaha artilleriga iyo 1,200,000 oo askari oo ciidamada dhulka halka Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub ay ciidamada dhulka ka kooban yihiin 250,000 oo askari iyo 2,700 oo taangi iyo 1,500 oo qoryaha artilleriga sida daraaddeed dagaalka dhulka waxa gacanta sare leh ciidamada Ruushka maadaama Mareykanka laga taangi badan yahay lagana ciidan badan yahay sida daraaddeed dagaalka dhulka waxa gacanta sare yeeshay Ruushka cirka sidaan ognahay dagaalka cirka ee diyaaradaha waa mid muhiim ah maadaama uu saameyn badan leeyahay wuxuuna ahaan doonaa dagaal ka kooban diyaaradaha casriga diyaaradaha wax bambeeya diyaaradaha aan cidi wadin iyo gantaalaha difaaca cirka ciidamada cirka ee dawladda Mareykanka waxay ka kooban yihiin 350,000 oo askari iyo 13,671 diyaaradood kuwaasoo 60% ay yihiin diyaaradaha casriga ee jiilka afraad sida F-15 F-16 F-17 iyo F-18 iyo diyaaradaha jiilka shanaad ee F-35 iyo diyaaradda ugu casrisan adduunka ee F-22 halka ciidamada Ruushka ay ka kooban yihiin 150,000 oo askari iyo 4,327 diyaaradood kuwaasoo 70% ay yihiin diyaaradaha casriga ee jiilka afraad sida MiG-29 MiG-31 MiG-33 MiG-35 Sukhoi 27 Sukhoi 30 Sukhoi 34 iyo Sukhoi 35 iyo diyaaradda jiilka shanaad ee T-50 taasoo ah diyaaradda labaad ee ugu casrisan adduunka sida daraaddeed dagaalka cirka waxa gacanta sare yeelanaya Mareykanka maadaama Ruushka laga ciidan badan yahay lagana diyaarado badan yahay laakiin meesha uu Ruushka kaga fiican yahay Mareykanka iskuna haleynayo ayaa ah gantaalaha difaaca hawada ee S-300 iyo S-400 kuwaasoo gantaalaha difaaca ee ugu casrisan adduunka wuxuuna Ruushka u adeegsanayay gantaalahan inay ka yareeyaan khasaaraha badan ee kaga soo gaari lahaa dagaalka cirka badda dagaalka badda ee labadan dhinac wuxuu ahaan doonaa mid ka kooban maraakiibta gujisyada maraakiibta xamuulka ee diyaaradaha qaada iyo doonyaha wax burburiya ciidamada badda ee wadanka Mareykanka waxay ka kooban yihiin 310,000 oo askari iyo 355 maraakiibta dagaalka kuwaasoo ay ka mid yihiin 12 maraakiibta xamuulka ee diyaaradaha qaada iyo 68 maraakiibta gujisyada halka ciidanka badda ee Ruushka ay ka kooban yihiin 148,000 oo askari iyo 335 maraakiibta dagaalka kuwaasoo ay ka mid yihiin hal xabo oo maraakiibta xamuulka ee diyaaradaha qaada iyo 70 maraakiibta gujisyada sida daraaddeed dagaalkan Ruushka wuxuu ahaan doonaa mid difaac halka Mareykanka uu ahaan doono mid weerar dagaal ku dhaxmara labadan biyaha badda caalamiga waxa gacanta sare lahaanaya Mareykanka halka dagaal ka dhaca badda Ruushka ay ahaan doonto barbardhac maadaama Ruushka uu adeegsanayo qaacidada difaaca wadankiisana la joogo sida daraaddeed si guud dagaalkan waxa gacanta sare yeelanaya dawladda Mareykanka nuclearka dagaalka nuclearka wuxuu noqon doonaa mid lagu dagaalamo saddexda meelood ee kala ah dhulka cirka iyo badda wuxuuna noqon doonaa dagaal labada dhinacba ay ku dhamaadaan oo ay ku khasaaraan maadaama halkii xabo oo nuclear uu geysan karo khasaare nafeed oo ka badan 100,000 oo qof iyo burbur hantiyadeed oo balaayin dollar marka sinaba laguma kala guuleysan karo haddana saas oo ay tahay waa la kala khasaare badnaanaya waxayna ku xirantahay tirada madaxyada nuclearka ee aad haysato sida daraaddeed dawladda Ruushka waxay haystaa 12,000 oo madaxyada nuclearka oo 8,000 oo kamid ay diyaar u yihiin in la gano halka 4,000 ay kale ay yihiin kayd halka dawladda Mareykanka ay haysato 8,000 oo madaxyada nuclear kuwaasoo 5,000 oo kamid ay diyaar u yihiin in la gano sida daraaddeed dagaalka nuclearka si guud waxa gacanta sare lahaanaya Ruushka inkastoo labadaba ay baaba'ayaan gantaalaha gantaalaha waxay kaalin lixaad la ka qaataan dagaalka waana kuwa burburka ugu badan geysta waxayna bedeleen dagaalkii foolka ahaa maadaama dawlad kasta iyadoo gurigeeda joogta ay duqeyn ka dhotan kale dawladda Ruushka ayaa Mareykanka si aad uga horeysay tiknoolajiyada gantaalaha maadaama ay si aad u maalgashadeen oo tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ay si aad xoog u saareysay farsameynta iyo casriyeynta gantaalaha waxayna dawladda Ruushka ay haysataa 8 nooc oo gantaalaha balaastika kuwaasoo masaafo ka badan 10,000 oo kiiloomitir gaari kara oo burburin kara Mareykanka waxaana kamid ah Saturn II oo gantaalka ugu xoog badan uguna ridada dheer caalamka
waxayna masaafadiisu gaaraysaa 16,000 oo kiiloomitir. sidoo kale waxaa ka mid ah gantaalaha Ruushka ee gaara gudaha Mareykanka Saturn 1, Tombaugh 10, SS-18, SS-20 iyo SS-24. wuxuuna ka heystaa gantaalahaasi waddanka Ruushka xaddi dhan 650 xabo, kuwaasoo uu midkiiba qaadi karo 10 xabo oo madaxyada nukliyeerka ah, halka Mareykanka ay haysto 2 gantaal oo balaastik ah kuwaasoo gaari kara gudaha Ruushka, waxayna kala yihiin Minuteman 3 oo gaara masaafo dhan 11,500 oo kiiloomitir iyo GMT-130 oo isna gaari kara masaafo dhan 11,000 oo kiiloomitir. wuxuuna gantaalahaasi ka haystaa xaddi dhan 200 oo xabo. sidaa daraadeed dagaalka dhinaca gantaalaha waxaa gacanta sare leh waddanka Ruushka. isku soo wada duubo dowladda Mareykanka waxay kaga xoog badan tahay Ruushka 2 dhinac oo kala ah dhanka cirka iyo badda, halka dowladda Ruushka ay kaga xoog badan tahay Mareykanka 3 dhinac oo kala ah dhulka, gantaalaha iyo nukliyeerka. inkastoo labadii dal ee iswadaarsan nukliyeerka ay labaduba baaba'ayaan, ayaa haddana waxaa khasaaro badnaanaya kan tirada yar haysta. sidaa daraadeed Mareykanka waa laga tiro badan yahay. halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa mowduuceena maanta, waana inoo mar kale.